بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سماليد ميلك جوجتان بإله سبحانه وتعالى يدكوان ما يلو عدي دبندبك الله كقادو عدي دن لا الله وفي انت بان الله ديقو انت بكت الله بوكسينتي دمتي الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستان نغن الله نوغا دبا نحريستو dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. Sidaan horeba idinku ballan qaaday waxaan rabaa inaan idiin sheego xogtii shirkii Security Council-ka ee ku saabsanayd arrinta Soomaaliya iyo Ethiopia. Hore waxaan idinku sheegay Soomaaliya inay codsatay 23 January in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka yeesho shir lagaga hadlayo arrinta Soomaaliya iyo Ethiopia. Shirkaas oo aan caadi ahayn. waxaan idin sheegay 26 bisha in Ethiopia iyadoo warqad qortay ay leedahay shirka laga baaqsado iyadoo doodeeda ku dhistay marka koowaad horta waxay waxdaha furan bay ahaayeen Soomaaliya waa u sheegay wadamada dariskaana waa u sheegay inaan heshiiskaas gali doono heshiiskuna wuxuu ahaa heshiis sharci ah oo aan la galay Somaliland oo aan ku helayo bad kuna saabsan dhaqaale aan shughul ku lahayn. qodobka saddexaad waxaa African Unionka Peace and Security Council code qaybta amniga ee gobolka Africa ururka Africa qaybtiisa amniga ayaa arintayada ka hadlayso nin baaba nolol xilsaaray abasaanjo la yiraahdo ninkaas hawsheeda galay marka iskaga baaqsada shirkaas yaan la gali. Soomaaliya waxay ka daba qortay warqad oo ambassadorkeena UN inoo jooga Abukar Baale uu qoray oo arintaas gaashaanka ugu daruuray isla markaasna uu ku sheegay warqadaasi inay ka hor imaanayso waxyaabihii Ethiopia ay banaanka la taagnayd oo dhan. inta markay dhacday waxaan horay u sheegay Soomaaliya ku guuleysatay shirkaas inuu dhaco 29 bishana la shirayo saasaan idinku sheegay shirkii uu dhacay waxa lagaga hadlay marka koowaad shirka isaga Security Council-ku waxay dhaheen waxaan aqbalnay inaan shirka qabano anagoo Soomaaliya warkeedii ay dalbatay codsigeedii tixgelinayna. Security Council-ku also wuxuu dhageystay xog laga siiyay arinta. qodobka saddexaad waxay sheegeen Soomaaliya position-keeda horta muxuu ahaa waxay sheegi doonaan Soomaaliya position-keeda haddana waxay sheegi doonaan mowqifka ay Ethiopia ka leedahay arintan ama mowqifkeeda arintan ku saabsan kadibna waxay sheegi doonaan mowqifka Security Council-ka mowqifka Soomaaliya ku hormarno. waxay leeyihiin Soomaaliya waxay leedahay Ethiopia's actions are a violation of the UN Charter. marka koowaad ficilada ay ku kacday Ethiopia waxay ka hor imaanaysaa adduunka xeerarkiisa caalamiga ah. labo isku dayga inay dhulboob ama bob annexation ay samayso it is attempt of annexation of Somali territory inay isku dayday inay qabsato dhul Soomaaliyeed. saddex Ethiopia ficilkeedu wuxuu raad ku reebay amniga iyo xasiloonida Soomaaliya iyo gobolka oo dhan. afar waxay Soomaaliya sheegtay inuu raad ku yeeshay 10 inuu ku yeeshay al-shabaab la dagaalankiisa la dirirayay oo ay dhibaateeyeen arintaas. shan waxay sheegeen Soomaaliya inay mahadinayso ama bogaadinayso ururka United Nations-ka inay bogaadinayso African Union-ka inay bogaadinayso IGAD iyo Arab League siday u taageereen oo u garab istaageen Soomaaliya madax banaanideeda midnimadeeda territorial integrity inay xuduudaheedu lama taabtaan tahay ama dhulkeedu uu lama taabtaan yahay iyo inay politically siyaasad ahaan ka madax banaan tahay adduunka oo dhan oo iyadu siyaasadeeda u madax banaan tahay. toddoba waxay sheegeen Ethiopia inay daacad aysan ka ahayn oo munaafiqnimo ay wado inaysan daacad ka ahayn maalintiina ay ka maqnayd IGAD excuse-ka ay keensatay ay been ahayd shirkaasna ay ka maqnayd shirkii AU Peace and Security Council-kana ay u goysay labadaba way ka maqnayd beeraan oo waliba mid iyadoo ay dalbatay.
waxay kaloo ku khatimeen oo qodobka sideedaada Somalia's problem needs Somalia's solution. Problemka Soomaaliya oo ay ka mid tahay qadiyadda Somaliland Soomaaliya u gaar tahay Ethiopia uma furna wadan kalena uma taal dal madax bannaan oo dadkiisii muran ka dhaxeeyo iyaga ka xajisay murankooda waxaan arki doonaa mowqifka Ethiopia intaas waa mowqifka Soomaaliya mowqifka Ethiopia oo Security Council-ka adaa yaabin hadaa dhageystay ajaayib baad la kulmaysaa Ethiopia maxay tiri waxaan ixtiraamayaa aqoonsanahay xuduudaha Soomaaliya sovereignty and territorial integrity Soomaaliya madax bannaanideeda xornimadeeda xuduudaheeda iyo in dhulkeeda iyo badeeda iyo cirkeeduba ay yihiin lama taabtaan waan ixtiraamaya waa qodobka koowaad qodobka labaad accesska aan raadinayo iyo badda inaan waddo u helo jid badda aan ku tago inaan helo waxaa moodaa inay xaq u leeyihiin bad inay tagaan inay khasab tahay waddan walba inuu badda tago yaa waa dullinimo iyo badownimo iyo indha adayg iyo markaad u fiirsatay arrogance kibir iyo faataabakh waxay dhan bad inaan tagno waddo aan inaan u helno ujeeddada aan ka leenahay ma aha wax kale waa dhaqaale waa qodobkeeda labaad saddex qodob kaliya weeye qodobkeeda saddexaad and this is the main point no recognition for Somaliland dadkii dhalinyaradii odayaashii xataa xisbiyadii mucaaradka ahaa dadkii hore maskaxda laga galay waa la waalay khuraafaad baa lagu akhriyay bukhda iyo baqda iyo waxa ka yeeraya waa yaabaysa xataa oromaa laga dhigay maanta oo dhan abxaaradii bay ammaanayaan ciyaaladoodii waxay caayaan cid alla cidii abxaara wax ka sheegta iyo Ethiopia caruurtoodii saasaa loogu sii daayay suuqa iyo twitterada iyo meel kasta qof alla qofkii Soomaaliya difaaca oo Ethiopia wax ka sheega Ethiopia اعتراف بين وصودا اعتراف حقه صومريا الباب كسو تاغن الى صوران رحمه الله عليه نكاس سيفي عن دغي الى ناتشل انتو نسو فريستي ولاalo بني ادم ما احي waxaan rabaa inay aqoonsatid inaan bini aadan ahay ma ujeedaa yani heerkaas ay la maraysaa inay ka shakisan yihiin bal waxa yihiin aqoonsiga maxaaro uga baahan yahay Ethiopia marka maxay u leedahay no recognition for Somaliland wax اعتراaf oo aan u hayno ma leh bay dhaheen and it is part of Somalia وانا قبل كميدا Somalia حسبنا الله ونعم الوكيل الله إلهي قعبة كيرتي موسى إيو كوهدي سي خرافات كذلك كو أخريجري قعبة كيرتي بين بيدين شيئا دات وحي هلين وحنا قرين وحنا آخرين اعترافكو فيري هريبان دي كو شيء over and again انت أسو شيربان دي شيء ودي كو علنية waxaa la ictiraafa qowmiyad meel degan oo ka gooni ah dadka marka la eego ama midabka ama diinta ama luqadda ama dhaqanka ama isirka ka gooni ah dadka shaqo ku lahayn markaas la yiraahdo war dadkaanu dadka kale waa ka duwan yihiin saa darteed maadaama ay ka duwan yihiin gaar inay u istaagaan xaq bay u leeyihiin Ethiopia marka waxay og tahay inaysan ku xadgudbi karin xeerarka caalamiga Security Council-kana idab daradii ay suuqa la taagnayd iyo waxay Muuse ku akhriyeysay inaysan ku dhicin inay ka hor tiraahdo waxay og tahay cawaaqibka ay la kulmi karto haday ku idab darooto Security Council-ka hortiisa maxay tiri marka wax اعتراaf oo aan Somaliland u haynaa horta ma jirto badana economic uma ka rabnaaye iyo dhaqaale wax kale kama rabno mana qabsanayno ciidan dhageysan mayno wixii oo waa inkirtay nabi baaba waligayba ma arag waligayba ma arag koow Soomaaliyana ka mid tahay inkastoo aanu xiriir la leenahay macnaheedu ma aha inaan ictiraafsanahay wadan gaar tahay iyo inaysan Soomaaliya ka mid ahayd midna markaysa intaasay ku soo koobtay hadalkeeda now mowqifkii Security Council-ka mowqifkoodu muxuu yahay waxaan walwal ka muujinaynaa صحيحة هشيس كشرع الدرادة أي إثيوبيا لقشي Somaliland وحان والول إسنا كموجينينا dhibaatada ay arintaasi ka geysatay Soomaaliya iyo gobolka oo dhan
macnaheedu maxay tahay intii Soomaaliya tiriya lagu soo celiyay waxaan walwal kale ka muujinaynaa Soomaaliya waxay sheegtay ku eedaysay Itoobiya inay ka maqnayd igad gardarrana ay uga maqnayd beenteedna ay ahayd waxa ay sheegto cudurdaarka tiina waa lagu raacay waxa la yiri ka maqnaanshaha igad waxaan ka qabnaa walwal waxaan kaloo walwal ka muujinaynaa suurtagalnimada al-shabaab inay soo hoogeystaan sababtoona ay tahay tensionka iyo buuqa ay abuurtay Itoobiya darteed waxay sheegeen oo kale reaffirms Security Council wuxuu mar kale cadeynaya ixtiraamku u hayo Soomaaliya sovereignty madaxbanaanida Soomaaliya unity midnimadeeda marka lagu daro Somaliland iyo gees kasta midnimadeeda haye territorial integrity inay lama taabtaan tahay dhulkeeda hantideeda dhuleed iyo midda cireed iyo midda badeed inay lama taabtaan tahay iyo political independence inay siyaasad ahaan madax bannaan yihiin oo xor yihiin wadan xor calan leh oo xuduud leh oo hawo leh cir iyo bad leh aan midna la taaban karin inay yihiin waxaan qaadanay bay note waxaanu xisaabta ku darsanay shirkii ay yeesheen AU African Union iyo IGAD iyo Arab League ay ka yeesheen qadiyadan baanu iyadana xisaabta ku darsanay waxaan kaloo waxay dhaheen aanu walwal ka muujinay dhibaatada ay u geysatay arrintaani la dagaalanka argagixisada iyo bixitaankii ATMIS oo mudaysnaa 2024 sanadkan December inay baxaan bay ahaayeen Ethiopia haday rabto bay dhaheen inay wada u hesho badda ay ku tagto waa inuu wadadaas waa inay ku raadisaa qaab nabada iyo heshiis iyo is-afgarad Soomaaliya iyada dhexmara ma aha koox yar oo gooni goosata ah oo siyaasaddu ku ciirtay oo nafis siyaasadeed daydeeya aruurahay ku khaldaaniyeen inta markasta iyo dadka waxba aqoon waxna akhriin laakiin dadka waxa akhriya waa ogyihiin waxaan ay khuraafaad tahay iyo ciyaar 34 sano laga jooga xilliga ay ku dhawaaqeen inay gooni isu taagayaan meel kastana waa mareen dhul kastana si kastana dhulka waa isula dhiceen waana galgasheen cid ka hoos qaadayna ma jirto sababtana waa idin sheegayo wixii wax lagu aqbali jiray oo dhan baa meesha ka maqan reero qowmiyada oo hal oo Soomaaliya kulligood hal reer ah oo haday soo abtirsadaan aan meel la kala aadi karin kulli isqaba isla dhashay isu dhaxa abti iyo habaryar iyo eedo iyo adeer soo ah dad hal ah oo isku jinsi ah oo isku midab ah oo isku diina oo isku dhaqana oo wax lagu kala qaybin karaa aysan jirin baa waxay leeyihiin waa go'ayna oo dad xoogaaya been ku akhriyay oo khuraafaad ku akhriyay oo ka dhaadhiciyay oo qaar maskaxda ka waalay oo ku soo daayay bari bulshada iyagoo qamaamay oo yaacaya oo aad moodid qofkaan isla korto mar dhow baa naftu ka dhacaysa hadalka isugu adkaynayo oo kugu soo tuurayo waxaad leedahay war ninkaanu armadhiika ku dhaca ilaa wixii shaqayn mayaan Soomaaliis waxaa la yiri oo lagu soo koobay hadalkii Soomaaliya ay ku soo khatintay warkeeda oo ahaa Somaliland issues is for Somalis qadiyada Somaliland murankeeda Soomaalida u taala reer Somaliland kaliya uma taal Soomaalida oo dhan bay u taal annagoo dhan bay naga dhaxaysaa waa qadiyad naga dhaxaysa qof baa wuxuu rabaa inuu yiraahdo dib baan qabaa waxaan tirsanaya waa la xajoonayna waa la fariisanayna waa daahinaynaa wixii loo geystay mag iyo xaal iyo waxa la waxay mudan yihiin ciidamad baa u wadna madaxan ka saarayna diyaar baan u nahay qaar kamid ah xubnaha ugu dambeyn qaar kamid ah xubnaha Security Council-ka dawladaha waaweyn qayb kamid ah baa waxay dalbadeen MOU-gi Ethiopia ay saxiixday content-giisa isagaba in loo keeno wuxuu ku qornaa iyo wixii lagu heshiiyay iyo wixii xataa off the record ahaa la qoray inay helaan macnaheedu maxay tahay Ethiopia been bay ka sheegtay waxay tiri MOU-ga kee ma heshiis yar oo iska aha annaga iyo qolo Soomaaliya kamid ah aanu wada galnayo dhaqaale kaliya ku saabsan waa wada ganacsaneen laakiin Soomaaliya kamid yihiin اعترافنا وما هينو بين وي waxay sheegayaan allow qacay makaayay Muuse waxaan ogaado meel daran taagan waxaan ku arkay meel daran taagan nafsi siyaasadeed baa raadinaysay laas caanood kadib tanaa kuugu daran wax اعتراف la yiraahdo ma jiro dhulaa bixin kartid ma jiro marka dadka wareerina doorashada qabo dadkana ka hor dhaqaaq oo ka hor leexo
ummadda haligin intaad u geysan kartay u geysatay dhibaataysay bari hore ahayd markaan iri muuse gacantiisa ku burburaysaa maanta laba gobol buu ka hayaa oo reerkooda degan yihiin oo iyaguna haaf aysan aqbalayn oo ka soo horjeeda way ka fiicnayd markii iswadatay oo ay rijin weyn ahayd oo ay amni haysatay oo ay ku faanaysay nabad iyo horumar